Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u qiimo badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay ama ciwaankeedu uu yahay qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay akhlaaqda wanaagsan. Qisadan ayaa waxay dhexmartay imaamka lagu magacaabo Abu Xaniifa iyo nin ay diris ahaayeen. Ninkan la diriska Imaam Xaniifa ayaa wuxuu ahaa nin aan akhlaaqdiisa wanaagsanin, mar walibana wuxuu imaamku dhaqmi jiray waxyaabo aan wanaagsanin. Ninkani sida dhaqankiisu ahaydba wuxuu ahaa nin mar waliba qamriga caba, isla markaana habeenkii heesii wax ka shaqeeya. Ninka maalinka dhan wuxuu aadaa magaalada, habeenkii ayuu soo laabtaa, wuxuuna la soo laabtaa xogaa raashin iyo qamri. Raashinka ayuu karsadaa, markuu raashinka cuno ka bacdina qamriga ayuu cabaa. Markuu qamriga cabana wuxuu bilaabaa inuu garaacayo muusig iyo hees. Imaamka ayaa habeenkii dhan iska cibaadaysan jiray. Waxaana dhici jirtay mar qaarkood in imaamku uu ku dhibaatoodo waxyaabaa ninkan uu garaacayo, balse ma uusan la hadli jirin. Muddo kadib ninkii markii uu sida ahaa ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in ninkii isaga oo socda ciidan ay wadada ka qabsadaan oo xabsi ay geeyaan. Imaamkii ayaa ninkii waayay muddo kadib dadkii ayuu weydiiyey, wuxuu ku yidhi xagii uu ka baxay ninkii diriskayga ahaa. Waxa uu sheegay ninkan in la xiray oo xabsi la geeyey. Imaamkii ayaa raadiyey ninkii, wuxuuna tagay xabsiga, wuxuuna la kulmay ciidamadii, markaasuu wuxuu ka dalbaday in ninkan loo soo daayo. Boqorkii meeshiistay ayaa waxa uu ku yidhi, maadaama aad tahay imaam Abu Xaniifa, waxaan soo deynaynaa isaga iyo dadkii la xiro dhan. Ninkii sida ay ku soo kaxeeyay imaamkii, markii uu ku soo celiyay gurigiisa ayuu wuxuu ku yidhi, bal niyahow ii waran, xumaan miyaan kugu samaynay? Markaasuu ninku wuxuu ku yidhi, maya, marka koowaad waxaan ka qoomameynayaa xumaantii aan kugu sameeyey, marka labaadna waxaan ku ballan qaadayaa in laga bilaabo maanta aan qamriga iska dayn doono, xumaantiina aan joojin doono. Sida ayuu ninkii ku toobad keenay, wuxuu noqday nin wanaagsan. Qisadan halka ayay nagu eg tahay. Qisadan ayaa waxaan ka faa'iideynaa akhlaaqda wanaagsan iyo darsinimada wanaagsan faa'iidada ay leedahay. Waxaa laga yaabaa in qof diriskaaga ah uu xumaan kugu sameeyo, balse haddii aad xumaan uga jawaabto waxaa dhici karto inuu xumaan ka sii qaado. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay waxyaabaha ugu culus miisaanka maalinta qiyaamaha waxaa ka mid ah akhlaaqda wanaagsan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay jalka maalmaha, fadlan subscribe dheh, gamayna ka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub oo soo dhigi doono. Mahadsanid.